waxyar kadib isoo ila joogo ayaan aniga mir daboolmay ama aan mir beelay si ay ku sheegtay sheekada. kadib gabadhi waxay tiri waxaan ku dhacay sariirta korkeeda. kadib wiilkii wuxuu rabo iga sameystay. Hello guys, welcome back to my channel. walaalkiin idin leh soo dhawaada. fadlan haddii aad ku cusub tahay YouTube channelkayga subscribe saar. haddii aad hore u sartani mahadsanid. magacaygu waa Wadani Bahar, halkaad iga daawanaysid waa Mojis TV. maanta barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay ila tali iyo waano ay ku saabsan yahay maanta barnaamijkeena. waxaa la talinaynaa gabar noo soo dhiibatay arin aad iyo aad aan ugu naxay. waa arin aad iyo aad aan ugu naxay. dabcan qof walba way qabsan kartaa, gabar walba way qabsan kartaa, balse hore waxa loo yiri biyaha inta isku soo gaarina la iska muusaa. biyaha inta isku soo gaarin ayaa la iska muusaa. haddaba aan waxyar sheekada ee inoo soo sheegtay iyo talada ay rabto idinkuna waad sii kartaan talo waa gabar walaashiina. aniguna waxaan rajeynayaa talada aan siiyo in wax u tari doonaan ee wax ku fahmi doonto. dabcan qof walba dhibaato way ku dhacaysaa adduunyadan, qof lama siin, qof lama wada dhibaato ka haysta. haddaba gabadhan waxayna tiri wiil ayaan aaminay aan iska baranay wadada. kadib lambarkii imkaas siiyay wada sheekeen wada socod badan. kadib wuxuu ugu qalqaaliyay inaan kula kulmo guriga ama guriga familkiisa ah, guriga hooyadiisa iyo walaashiisa dad familkiisa. guriga waxa kaga soo horeysay ama joogtay guriga gabar walaashiisa, asaga wuxuu ku maqnaa dhanka banaanka. kadib waxaa imaaday gurigii ayay tiri. kadib waxaa soo dhaweysay walaashiisa. kadib waxa ay geysay guriga qaybta qolka oo asaga degan yahay ayay geysay. waxayna ii qastay cabitaan. kadib meesha ayaan ku wada sheekaysanay. kadib cabitaankii ayaan halkaasi ku cabay. waxaa imaaday wiilkii. kadib markuu wiilkii imaaday waxyar kadib isoo ila joogo ayaan aniga mir daboolmay ama aan mir beelay si ay ku sheegtay sheekada. kadib gabadhi waxay tiri waxaan ku dhacay sariirta korkeeda. kadib wiilkii wuxuu rabo iga sameystay. kadib waxaan soo kacay asigoo mar labaad jecel inuu igu soo laabto. kadib markaan soo kacay ayaan xanaaqay. kadib wuxuu igu jawaabay naya adaa iskeena meeshaani waxba ha qaylqaylinin, waxaad u baahneed intaas leeyahay, maxaa la qaylqaylinaysaa isku waaleysaa, waa ku fudeeyay, waa ku seexiyay, maxaa isku waaleysaa ayuu yiri. kadib waan naxay. waxaan ku jawaabay ayaan garawaayay sababtoo ah waa sax aniga ayaa gurigiisa ugu imaaday ayay tiri. laakiinse waxaan u baahanay tiri talo. arrintaas sideen ku baabi'i karaa? mustaqbalka ninkii guursan lahayn sideen uga hortagi karaa? wax laga naxo wallahi. waa wax gabdhaheen badanaa dhibaatada haysato waxay tahay waa arrintaas oo kale. ani mar badan fiidiyoyaal badan waa soo sameeyay. dabcan dadka ma sheer garanayaan sababtoo ah fiidiyoyaasha aan sameynayo ma sameynayo ani inay YouTube iska dhex yaalaan, balse waxaan u sameynayaa dad gabdhaha inay gaaraan. wiil ha kula kulmin meel cidla ah. mar walba waan ka hadlaa, balse tan way dhacdo somaha. Soomaaliya hore waxay u tiri waxa dhaco waxay u dhaceen lama dhaho, balse sidee lagu xaliyaa ayaa la yiraahdaa. haddaba haddii aan talada aan ku siiyo qaadatid, dabcan waxa macquul ah inaad qalbigaaga ku dego wax walbana ku fududaadaan. 1 haniya jabin. 2 sidaad haajirtay ahaw kuna soco wadadii aad ku soo jirtay markaagii hore. kaliya ka fogow nin inaad isku jiljilcisid. jiljilic dhan ka fogow. wuxuu ha ahaado kan lagugu darayo ama markaas guurka ku wada heshiiseen ha ahaado ama mid familka ku siiyan ha ahaado, weligaa jiljilic nin ha u sameynin. 3 mid saddexaad ku siinaa waxay tahay iska ilaaw waxaan kugu dhacay. ka soo qaad inaysan waxba kugu dhicin, qadar waa tii rabbi, qof walba waxba ku dhacaan, balse waxaan kugula talinayaa iska ilaaw waxa kugu dhacay. kaliya maskaxdaada ka saar qof ina la wadaagto iska daayay, naftaada xataa la wadaagin hadda kadib. taladeedu waa intaas. waxaan u daynayaa fikradaha ay soo gudbi doonaan shacab weynaha ama dadkana daawanayo. insha Allah waxaan ka rajeynayaa talo fiican ay inay ku sii doonaan, balse aan u soo laptop barnaamijkayga iyo fiidiyogayga. taasina waxay ahayd ila tali oo aan gabar walaasheeda kula talinay. ani horta waan hadli karaa laakiin wax ma celi karo saan hore u sheegaba. mar walba waxaan jeclahay gabdhaheena Soomaaliyeed inay ahaadaan gabdhihii la yaqaanay oo lagu daya jiray. please gabdho sharaftiina doorta.
show ayaad aadaysiin waqti xun aad ka imaanaysaan walaalkaa wuu murugoonayaa walaalkaa kulama hadli karo aabaha ayuu ka baqayaa aabaha wuu murugoonayaa hooyada halkaas ayaan videogan kusoo gabagabeynayaa oo ahayd dardaaran ama waano ama wax fahansiis dumarkeena gabdhoy gurigiina markaa joogtaan way adag tahay inay dhibaatani qabsato qadarta rabbi ma ahane balse haddii aad banaan joogtid waxaad la mid tahay hilib bisil sidii hore loo sheegay hilib bisil bisadii aragto ma sii deynayso ama hilib meel yaalo bisad ma sii deynayso waxaad la mid tihiin hilib please and please waxaan niga codsanayaa inaad ku ekaataan guryihiina raggi waa wada waasheen kufsi dil waxaad maqlaysaa gabadha xagga lagu dharbaaxshay gabadha xagga lagu dilay gabadha xagga lagu feeray gabadha xagga lagu haystaa gabadha nina xaaskiisa dilaxdood maqlaysaa maxaa dumarka laga rabaa war dumarka maxay galabsadeen waa hooyooyinkeena waa walaalaheena waa nolosheena waa farxadeena maxaa loo baabinaya laga rabaa cadowgan xaguu ka yimaada dumarka afla sac dhibaateenayo ilaahow badbaadi dumarkeena gabdhoy waxaan jeclahay mar walba inaad ku dadaashaan nafsadiina waan ogahay waa iska jeceshiin nolosha balse noloshaada ku qaada gurigaaga ku farax gurigaaga ku boodbood gurigaaga halkaasna waxaan kusoo gabagabaynayaa videogeena haddii aad ka hesho videoga like haddii aad ka helin dislike haddii aad noo haysid fikrad iyo talo commentiga haddii aad ku cusub tahay mar labaad oo aad ilaawday horay waan kusoo xasuusinayaa nagu soo biir ee subscribe saar oo balaakiinoo idin leh mar walba waxaan jeclahay baraarujinta ama waanasiinta gabdhaha Soomaaliyeed way gabdhaha Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin qof garab taagan waxaan jeclahay inaan noqdo qofkii ugu horeeyay ee garab taagan gabdhaha way jiraan dad badan balse aniga ahaanteeda youtuber ahaanteeda ama youtube wax qof ka hadlaba inuu noqdo qofka ugu horeeyay ee gabdhaha mar walba u heeliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu